mudana wakiilaan wiilkayga ayaa la afduubtay maalimo ka hor xitaa waxaan diyaar u ahaa inaan lacag bixiyo wiilkayga liigu soo celiyo afduubahana dib liigu soo qabto booliiskan arrinkaas waan u sheegay waxba kama aysan qaban magaaladan afduubkana aad ayuu ugu tirabatay 2 maalin kadibna wiil ayaa la afduubtay oo family laga afduubtay dadkaasna waxay isku dayeen burcadaas inay sawir ka qaadaan waxayna xitaa noo sheegeen in dilaaga ay gacanta ku soo dhigaan balse wiilkooda ayaa baladiniba wax caddeena ilaa ay hadda uma hayn arrinkaas ku saabsan marka waxaan rabay arrinkaas inaad guda gasho caddeen sax aana ka keento si kiiskaas uu xayiro waayahay maxaan ku qabtaa stop raalli noqo waddada afraad xagga ayay ku taalaa labaad ka gelaysaa filimkani waxaa lagu tarjumay markaas kadib waxaan soo ogaaday gaangisirada ciyaalka afduubanaya inay 3 ka kooban yihiin sawiradoodana gacanta ayaan ku hayay dadka ayaana weydiisay ay igu sheegaan maama waxaan rabay qofka daroogada iibiya meexa soo degan yahay waraajifa istaag su'aal baan ku weydiinaya ninka meel ku sheeg bal kana xaggas degan guri ugu dambeey xasan ma soo geli karaa soo galay yaa tahay lacagaan wataa ninka daroogada iibinaya awo qolkaasuu ku jiraa يا تاوريا إدف هلا وريا وير أنكال وريك عسكري وانا قلت لك magacayga waa mukiilaan waxaana qaabilsanahay qaybta dambaarista mar walbana waxaan jeclahay waajibaadka lay saareed sida taana noogu soo baxo midda kale waxaana meesha ka maqnayn inaan ahay qof mar walba dareemihiisa ilaaliya noloshiisana xiiseeya sheekadeenna waxaan ka maqnayn xaaskayga debi laakiinse nasiib wanaag farxaddeeda way baaba'day taasoo sabab u ahayd baaris aan hayay oo lagu magac daro howlgalkii x kiiskaasna wuxuu ku saabsanaa kiis dil ah isla mar ahaantaana kiiskan wuxuu noqday mid nolosheedoo dhan waxyaabo badan ka beddela marxuumadda magaceeda waa baryaa dilkaana waxaa u geystay ninkeeda oo lagu magacaabo kasiinaa midteeda kale wuxuu la yaabay sababtuu xaaskiisuu dilay anagana markaa weydiin wuxuu dhahay ma baqaan arrinkan sababtan uu sameeyey sidoo kale 2 biloodoo la soo dhaafay 3 dil ayaa dhacay 3daas dilna isla meeshii ayuu dilaaga ka dilay raadraac dilkan quseeye ma haystaan maya ilaa hadda caddeenka ma hayna dilkan xataa wax noo muujinaya baan arkay runtii annaga maadaama kiiskan aan ku wareernay waxaan ku khasbannahay inaan mukiilaha u dhiibno si oo warbixin cad noogu keeno sidoo kale arrintan waxaa garab ku siinaya dhakhtarkan shirka nagula jir magaciisana waa firaan hadda maxaad u baahan tihiin inaan garab nidiga siiyo runtii dictor anaga kiiskan si ciidannimo ayaan u baray ilaa haddeertaane wax raadraaca maanan helin marka adiga waxaa kaa rabnaa si cilmu nafsi ahaan inaad u baato
maxaa dhacay gambaleelka waxaan u yeeriyey inaan ku ogeysiiyo gaaskoo ku furan inaad qubays aadee kaligaa maxaa qubaysan lahaynaa iga dhaaf dhibkano maxaa dhahay hadda ma xishood bilow waxaa rabta maa iska sheegay yaal maxamudina maxaa murugaysantahay ma murugaysni hadaba ma ku farxad geliyaa ma jeclaan lahayd inaad aragto ninkaaga siduu cayaaraya misena u heesaa தொடாதே கண்ணால் நீ என்னை மெல்லாதே மன்னதால் நீ என்னை அல்லாதே அழகால் நீ என்னை தள்ளாதே தனியாக நீ என்னை தொடாதே தொடாதே கண்ணால் நீ என்னை மெல்லாதே மன்னதால் நீ என்னை அல்லாதே அழகால் நீ என்னை தள்ளாதே தனியாக நீ என்னை தொடாதே கண்ணால் நீ என்னை மெல்லாதே மன்னதால் நீ என்னை அல்லாதே Look at my body, it is wow, wow, baby. Look at my skin, it's dazzling crazy. I'm too hot and too sexy for you, baby. Think about me, baby, night and day in your bed. In your bed. தொடாதே மெல்லாதே அல்லாதே தள்ளாதே முத்தமழகு எதற்கடித்தேனே முத்தமழையில் மூழ்கிடத்தானே எதற்கடித்தேனே மொத்த முடிச்சு அகழ்ந்திடத்தானே கண்ணை பெருக்கும் எந்தன் கட்டுடலை கண்ட பின்னும் காதல் துடிக்கவில்லையா கட்டி முடிந்த நெஞ்சில் ஆசைகளை கட்டுகிறாய் ஐயோ வலிக்கவில்லையா பாதி ராத்திரி பத்திக்கிட்டு எரியுது வாடி வாடி அதை அணைக்க ஆதி மிருகமோ மனசுக்குள் திமிருது வாடி வாடி அதை அடக்க நீ வேறு நான் வேறா aflaamta hindiga maraykanka kartoonada iyo weliba musalsalada oo afkaaga hooyo ku tarjuman waxaad ka daawan kartaa fanbroj.com பசி மூட்டியே பாத்திரத்தை மறைப்பது எம்மா பெரிய சாபம் ருசி காட்டியே விட்டு விட்டு போவது ஐயோ பெரிய பாபம் லவ்னு துடிக்கிற மனம் இப்போ லவ்னு துடிக்கும் கட்டில் மெத்தையோ பட்டினியில் கிடக்குது விருந்து எப்பதான் கிடைக்கும் நீ வேறு நான் வேறா மண்ணை
tali shay baaristayaasha imaadeen tali isu ayaa la dhahaa anaga meeshan markaan imaanay waxaan aragnay labadan qof madax laga wada dhaawac weliba dhalo lagu dhuftay gabadha dhiiggeeda waa uu dhammaaday dilka gabadha muddo dheer kama soo wareegan tali sidoo kale dadka ma kala dilay dhiigaashooda waa la isdhaafsiyey si loo fahmin ma fahantay dil noocan oo kale horey ma u aragtay adiga maya tali waa markii igu horreysay aan arkay dil noocan oo kale wuxuushnimo ayaa loo dilay qofka dilkan geystana waa qof naxariista ay ka tagtay beri hore gabadhan xaaskiisa ma aysan ahayn waxay ahayd gabar jirkeeda dilka markuu dhacay isla markii ma lagu soo wargeliyay adiga laakiin 3 saac kadib ayaana la soo wargeliyay waaye caddeemo dilkan ku saabsan haa waan helnay musqusha ayaana ka helnay tali aqoonsigiisa uma ekeen waxay ahaataba aqoonsigan ayaa raadraac noo noqonaya qabo okay tali waa ku fahmay wariyadin kadib maxaa taagantiin ordaha shaqadiina qabsada en tali ciwaankan ayaan soo hubin aniga tali aan waa cabsanooya meeshaan dhiig badna buuxa dhiiga meel ku yaala aan warbixinta booliska ay soo diyaariyeen waa kan ani dhiig badna ka cabsanooya waxaad ii sheegtaa in kiiskan warbixinta aad ka heysiin ilaa intee la eg tahay kiiskan arrimo badan oo ku saabsan ayaan helay laakiinse dhammaantood cikis ayaa saaran laakiin ma lis dhihi karaa kiiskan ninka ka dambeeya oo dilaaga ah in tviyada barnaamij ka sameeya showyaal noocaas oo kale sameeya waa la dhihi kartaa dad hore waxaad iila kaatay qof kiiska nagu sii adkeen raba inaad tahay naga daada midda kale ninkan sida wax u dilaya markaad fiirsid waxaad is leedahay waa nin aqoon fara badan u leh habka wax u dilaya habka wax u sameynaya runtii waa ka khayli ninkan natiijada ii soo baxdayna waa taasoo kaliya wax kale ma samayn kara aniga dad hore kaftanka iga daa dhabta ayaan kaala hadlayaa muddo 2 bilood kiiska afraad dhacaya inuu yahay ayaanu arkaa aniga marka aan fiiriyo saad wax u baaraysaan warbixintan aad soo gudbinaysaan runtii waxaan dareemayaa ilaa hadda inaad xaqiiqda gacanta ku haynin taasna waa dhibaato arrintan ma sii socon karto dad hore xisaabta waxaad ku dartaa dilka inuu tirar badanayo walaalkii intee waa ii sheeg blue beach alla meeshaan blue beach aniga waxaana horta ma taqaanaa ma qofkaan ah ma ku kasay kumaataa ii sheegbo aniga xataa qofkaan ah ma isaqaano yaa sheekadaas ma ii keentay maxaa ku hadlaysaa adiga niyo maskaxda iga dhunto soo jilba jirta ku dheh tartiib wuu ku baryayaa caawalaalow waxaan ahay maba ogiba aniga maxaa kugu dhacay sheegbo seerjin iyo dir seerjin xaaskayga kafee macaan waana tegay hay haddaan kuu soo diyaarina soo dhaqsay maxay taas waxaan kan yiraa hirka badale maahino meesha meel degan ay egtaa midda kale gabadhaas yaa way saaree guduudan wadatay sheeg yaa gabadha ma kuu muuqata adiga waa la arkaa laakiin wax maa la xasuusan kara kabtan ayay tahay iyo xasuuso bal waatana gabadha linda ayaa la 26 jir waay xaasayna ahayd ninkeedana waa qoraa laga yaqaan magaalada Kerala asiga iyo xaaskiisa isku iskool ay ahaa jireen 6 bilood ka horna waa isguursadeen labadooda micniga jecel ay isku guursadeen ka wada daraska ay la degnaayeen tali aad bay uga cawaadeen dadkaasi tali sidoo kale 2 bilood kadibna jannaay magaalada la dhahay ay aadeen ma xaalad ma aad jirtay may
sidaan kugu sheegay ayuu dilku u dhacayaa Mr. James habeenkii xalay ahaa xaaskaaga ayaad dishay weliba si naxariis daraa ayaad midi ugu mudday haddana waxaa meeshaan u fadhinaa inaad noo sheegto sababta xaaskaaga midida aad ugu mudday ii sheeg bal sabab أنا حتى مو صابتها مسمي يقبلس نفسه أسبابته مدافي مستر جيمس waxaan ku weydiinayaa hal su'aal oo kaliya filmada dilka ma fiirsan jirtay ama filmada cabsida iyo waxyaabaha dildilka ka sheekeynaya أنا همية ikaadi master james adiga xaaskaaga xiriirkiina ma ahayn mid wanaagsan soo maaha ii sheeg هو فعنا قبل هذا وجه لاني لا أنت منو لا مستر جيمس هذا الكاغا waa been adii xaaskaaga iskuma fiicneen أنا حاسكي ما دل مسكت الحلقاس حقيكم مخنت محسمي حاسكي لندا قعدت ما قلت لي محسمي يعني دبعت محوق يستقبل مسكين محسمي يعني قالت وين انقلي مستر جيمس adii xaaskaaga ma sagaasheen مي أنا حاسكي اسمه تقال وح حمانين نما الأحمر ماي hadalkaaga xogtiisa dhabtaa weli nama aadan siin وي حق صربتها محته يا قبل السنة إن قعدتي تقول لي مر بدي سياسته خلط يا سمي وحفي عن المسلمين قبل سنين مستر جيمس وريرك بدس كده وريسي أيام كوني مد وربحين نصي مستر جيمس دكتور sidee ku suurto gashay nin naagtiisa si naxariis daraa inuu u dilo mase suurtogalaysa ilmo la'aan maadaama ay yihiin ayayada ma dhashi tahay awgeed inuu u dilo ninkaas wax kasta way dhici karaan soo ma runtii aniga aqoon waxaan u leeyahay cilmi nafsiga laakiin adiga dhanka maskaxda ku takhasustay arrinta sidaas ma anaga hawsheena ayaa waxay tahay dilka markuu dhaco baaritaan inaan samayno arrintaas kor ugu baxay xaaskaaga iga waran bal waa sidii xaaladeeda maalmaha waxaa la yaabanahay waxa maskaxdeeda ku dhacay waxaan ilooba ninkayga nambarkiisa xataa waxaan ilooba waddadii aan guriga ugu soo laaban lahay gurigayga kan miya waxay ila tahay maskaxdaada dhibaato weyn inay ku dhacday xitaa waxaa laga yaabaa arrin dareen inuu kugu furan yahay ama stress uu jiro yaqay gurigan maxaa ka qaldan fanbroj.com jikada ina bedelo muu eko jikada maxaa ku dhacay maxaa aragtaa micnaha sidii hore ma iila eko maxaa kaaga muuqdo isbeddel ayaan ka arkaa waad ku khasban tahay isbeddel inaad ka aragto ileen ballanka ayaaba sidaas ahaa maxaa dhacay ma xasuusti miya inaan ku wada ballannay in jikadeen sida rumeeye si kale laga dhigo adigana iloosha aad maalmahan ku dheeraysaa doctor nafsi aad u baahan tahay arrinkaaga arrin caadi ma ahan waa arrin weyn isbuuca dambe ii imow raajadaada ayaan baaris ku samaynayaa kadib jawaabtan aniga ayaa kuusoo sheegay okay ay mar kale ku soo celi okay waaw macda ரோஜா பூவின் முதல் வாசம் காற்றில் சேரும் பொன்மாலையில் காதல் ஞாபகம் கண்ணில் ஊறுதே ரோஜா பூவின் முதல் வாசம் காற்றில் சேரும் பொன்மாலையில் காதல் ஞாபகம் கண்ணில் ஊறுதே காலம் தீர்க்கின்ற காலம் வரை கண்ணாளா காதல் செய்வோமே காலம் தீர்ந்தாலும் தீராதடி
to get right by. Love is in your heart, not a passerby. So listen to your heart and you get it alright, alright, alright. Love will tell you how to get right by. Love is in your heart, not a passerby. So listen to your heart and you get it alright, alright, alright. காலம் தீர்க்கின்ற காலம் வரை கண்ணாளா காதல் செய்வோமே. காலம் தீர்ந்தாலும் தீராதடி. உலகத்தை முகிலினம் மறந்தாலும் முதல் மழை நனைந்தது மறக்காது. உலகத்தின் ஒளி எல்லாம் மறந்தாலும் முதல் முத்த சத்தம் மட்டும் மறக்காது. இதழோ பழையதடி, முத்தம் புதியதடி. தேகம் பழையது ஆகும், நனைதல் புதியதடி. காதல் என்பது காமம் என்பது இரட்டை குழந்தைகள் ஒட்டி பிறந்தது. காலம் தீர்ந்தாலும் தீராதடி. பூமிக்கு மழை இன்னும் சலிக்கவில்லை, பூவுக்கு வண்டு இன்னும் புளிக்கவில்லை. ஆயிரம் இரவுகள் கழிந்த பின்னும் ஆசையின் துடிப்புகள் அடங்கவில்லை. போதும் என்றபடி இரவில் தூங்குகிறேன், மீண்டும் காதலை தேடி பகலில் ஏங்குகிறேன். உள்ளே எரியது உடை தருவாயா? சிற்றென்பம் அரசில் என்று தீயா. Love will tell you how to get right by. Love is in your heart, not a passerby. So listen to your heart and you get it alright, alright, alright. ரோஜா பூவின் முதல் வாசம் காற்றில் சேரும் பொன்மாலையில் காதல் ஞாபகம், காதல் ஞாபகம் கண்ணில் ஊறுதே. Love will tell you how to get right by. Love is in your heart, not a passerby. So listen to your heart and you get it alright, alright, alright. ரோஜா பூவின் முதல் வாசம் காற்றில் சேரும் பொன்மாலையில் காதல் ஞாபகம், காதல் ஞாபகம் கண்ணில் ஊறுதே. naqshadan idiin hortaalo waxay caddaynaysaa dililka maalmahan dhacay meelaha uu ka dhacay. dilka koowaad halkan ayuu ka dhacay, dilka labaadna halkan ayuu ka dhacay, kan saddexaad halkan uu ka dhacay, midka afraadna halkan uu ka dhacay. dilka magaalada maalmahan ka dhacay waan aragnaa. dambaarsadayna waxaa muhiim noo ah inaan ogaano dililkan meesha iskala xiriiraan. midda kale jawaabta shabaarkan watar meel walba oo dil ka dhacay faraha aan ka soo qadnay waa kuwana sidaad aragto. laakiinse baaritaan walba markaan sameyno hal calaamad ayaa mar walba meesheeda ka soo muuqanaysa. marka meesha waxaa nooga cad hal qof oo dilka geysanaya inuu jiro, kuwa kale ay faalsiyiin. muhiimadeennana waxa weeye
sidaan gacanta ugu soo dhigi lahayn qofkaas dilaaga ah haddii kale dilkan baaxadiisa intaan way ka weynaanaysaa وريا هاي يا طاي هذه هاي ما اسمعك قبنه صوتك وريا ور صوتك حلقة ما اسمه صارنا هذا وركيب مخلوي مياس وريا صوتك قال لك الله كر الله وي وريا مالك لا كنت متد ما وايسي قال انت صوتك ما وقتوقع دقائق سك انا كو سكرايا سك سك يا اخي ترتيب اسالي كان مقالد وكو عصب يا مالين اسالي الساعة مالا مسوردي انا كو سكر حتى مي سكويسي سك يا اخي كان والا يا مالين ام وحكى لا وري هوي يا طاي شكل انت كي ماد ما كسر دركتي ماي اما سواسو علانجسي meeshan gurigeeda miya maya saldhig booliis waaye oo adiga marka askari miya tahay maxaa indhaha tarwarska qabtaa oo marka maxaad iga rabtaa ii sheeg arrimaaga inaan wax kaa weydiiyaan ugu talagalay oo aniga igu saabsanaa macnaha haa weliba adka ugu saabsan meeshaas maxaa ku saar ii sheeg maxaana ka doonta ma xasuusta horta meesha inaa kortay ma xasuusto ya oo maba xasuustid miya انتنا الى ما تحت محسوس تد ايوه وابه المانتي لكن ايوه adigu kuma tahay انا قفكان هيا وعيرتد ماسك شيغا ادي اكسو درجتي او مالينا walaalkay hal xab sigaar ma ku dhifanay sigaar beel sigaar mu qabl gudaha xabaa markana socon naga tahay naftaada mas'uul ka tahay أبو هذيك كل فنون ما يسيجار علانك قصد حقي يجي يوم كده ماشي عندك يفدي حمدينا نيو هاي اوكي وريا ها كان مدح مسلوش كياي مس wax kala jira arintiis wax mi dhadado walaalo ku tuugay wararsanaya kan kiis in loo dhibo maba ahan waa mid fala naga wad aniga waa ka tago oo soo jiireeha hal shay waxaan ku weydiinaa shaqada ma kuga adagtahay markii xaqiiqda la hadla kasta waa iska adag tahay akhay aniga xoogaa hurdan dareemaya koodhe een uun seexana dhulkan dhabacadsana waa dalan okay tan kale askari dhigayso nalkan soo fiiro orod orod mii maqashniin waxaa dhahay waa ku maqlaa zaa'id weli tan kale waxaan damacsanaha mala socota adiga inaa anigii dhegaysato keliya misanaan kaala hadlo wax adiga kugu saabsan waad i maqashaa mase weliba kusii faahfaahay hadalkayga ugu horreyn askari dareenkaadiisii waxaan rabaa maskaxdaada waxa ku jiro dhan inaan mid mid u ogaado ugu horreyn saaxiibka duray akhbaartiisa ayaad ii sheegaysaa weliba adigoo xaqiiqada ii taabanaya hana isku dayin been inaad ii sheegto wax walbana siday yihiin ayaad ii taabanaysaa haddii kale أنا هونيك هو أرنتي صور إجاسية. إسبتالك الدولة ده مدربه. إسبتالك الدولة ده. qofka geysanaya si faaja in loo geysanayo soo laga macquul ma midtaasi waayahay dilka dhacay oo dhan sidaan wada aragno hal nooc ayaa loo geystay warbixin iga sii marka warta midtaasi dilka dhan waa isku nooc
haddaba waan aragnaa dilalka faaji in loo geysanaa taasna caddeen waxaa waa calaamadda geysaa ninkii dilaaga hadduu faaji wax u geysanayo haddana waxaan dhihi karnaa waa nin aqli badan runtii maxaa yeelay siduu wax u samaynayo ayaa ah si uu ka taxadiri wax badan doctor ma xasuusta hadda kor inaad igu tiri qofka dilaaga dilka arrin ayaa ku kalifta tali saldhigga booliska dil ka dhacay ma runba hadda sabax adiga ma la socotaa nin askari saaxiibkaaga ahaa inaad midi wadnaha kaga mudday weliba aad dhowr jeer ku celcelisay sababta kugu kaliftay may sheegi kartaa ninkaas cadowgayas ahay siduu ku noqday sabab badanaa jira ani asiga hal saldhigan ka wada shaqaynayn muddo 3 sano mar walbana waxaan isku dayay in arrimahay khaso qaab daran waa ila dhaqmay waan u dul qaadanay laakiin tan waa adkaysan waay dabadeedna waa dishay maxaan kaloo suubinaa qof weligaa madili miya aadi ya weliba qof nacab zaa'id ah oo qabtid khasab waaye waa dile meelaan iska saaree hadalkaaga wuxuuna caddaynayaa si ula kaca inaad u dishay soo maa maya marka hore dilkiis waa ka fikire been baa sheegaysa hadalkaaga kuma qanin waa ogaay akhay maxaa waaye been baa sheegaysa xataa hal mar aan la hadla ninkaan waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga raam kaliyan waxaan ku weydiinaa inta aadan dilka geysan ka hor afteenka ugu dambe aad aragtay mii sheegi karta adigoo raaliya ma soo xasuustaa iftiin noocan oo kale maya naga dhaf yaqay maya yaqay see way adigan kaa jawaabtay راما سؤال أكيد إيه جواب ما حسوس تقف وحسوس بس وكتوها وحسوس نلقى لا يقدمي أنا شيء يا أخي يا وكتوها السك جوابت أقوم هليس شيك وريا شيك والقول هذا يا جوجي كوكو نلقى يقدم يا أخي شيك أفتين زايد وين جوجيني نفتي مايا قف ملانين يا أخي قف ملانين رامان يوها نيك مقعيس شيك يجي جواب سؤال كويدينا افتينك مكادينا هذيك علي يوها خوف او ديلكم كوكلفي اي شيك مقعيس خوف على كل واني ايمان يوها اي شيك خوف كاس ما اوغي يا اخي ما اوغي مقعيس اي شيك مقع دم لهن يا اخي بين بتشيغيسا انا كنت مقع دم لهن مقعيس مقعيس اي شيك مقعيس انت انا كنت جبت الشيك رخصو أنا قلنا أخانا سؤال شلوتي أتوقع إن الحكم ده أنا كاني وحول هذا وسيد جنان إنك سؤال تنوع أنا قلنا خلينا بس ده جون بريان دكتور جلجلة عيا كابته إني كان نوع أنا كل واحد له مسؤول سيدا سمع صحيح وحول محبين أخوان بيران أنا إني كان سي أخوان كل هانتا وحول دينا وأنا ربعين وحول بشي هذيك الواحد بدنا نسكت حياة جنان لو بهاي يعني ما حق إنك كده لكن دكتور جلجلة عنا الله ما بانا إني كان مدح عيونه فين هذا عثمان سلي واي وصل صعدة رامل هذا كل هذين محسمينيس ايه انا محسوب بيها واحد مسوبني يا اخي ما حد عندك كويس اي شيء ايوه اما حق عندك وهايا waxaan haya malaha idinka la wax been arkaysiin ayna tagda dhakhtarku muxuu ku soo yiri madax ayuu kumbiyuutar iga soo saar wuxuuna idhaa bari ii soo laabo anaa ka doonaya jawaabta يا أخي سبردان وكدا لاني وردا يا إيهسو وان اسك دافايا أو كلي كاغا ميا السعادة
taas muhiim ma aha ee jawaabta ii sheeg maskaxdaada ma ujeedaa waxaa ku furan booq unugyadeedana isma lahan dhibaatooyin fara badan ayaa kusoo wajahan maxaad ka wadaani ilaa hadda kuma fahmin waxaa jira cudur loo yaqaan almezer ya almezer kasma taqaanaa waa cudur mararka qaarkii maskaxda ku dhaco laakiin micnahaaga weli ma fahmin ilaa hadda ma aqaan sidan aniga wax kugu sharxo gabadhayda arrinkan waa virus sida kombiyuutarada gala oo kale maskaxdaada wixii ku jiro dhan wuu tirtiraya xitaa waxyaalo badan oo ay baaba'ayaan muddo kadibna jirkaaga ayaa isdhimaya ugu dambayntii waad dhimanaysaa daawo ma laha miya maya haddii aad dhimatana problem aad weyn ayaa meeshaas imaanaya marka aniga waxaan ku dhihi lahaa maskaxdaada si fiican ugu fikir waxyaalo badanna waa inaad iska ilaalisaa xitaa waxaan ku hayaa ilowshahaaga inuu aad u sii fara badanayo waxaa laga yaabaa xitaa wax walbo inaad ilowda maalmo kadib telefoonku hadladiisa xitaa waad ilaabaysaa waxaa laga yaabaa shaqadaada inaad aadi weyso waxaa laga yaabaa familkaaga asxaabtaadoo dhan inaad ilowdo xataa ninkaaga waad ilaabaysaa wax walbana meesha ayay ku dhammaanaya maskaxdaada xusuusteedana eber bay noqonaysaa ma garata gabadheed sidee arrintan ninkayga ugu sheegaa ilaa intee aad xasuusataa adiga hadalkan hadda ku wadalan xasuusta hadalkana ma jiro welwel maa ku haaya ii sheeg welwel noocaa soo yahayn karase middaas ma xumo adigu waxaa u baahan tahay dhakhtar fiican inaad tagto oo maskaxda weli lagaa daaweeyey wax kale kuma haayo ditorisa waxaad ila muuqataa qof welwel faro badan oo haayo maxaa ka jira yaa welwel micnaha ma anigu welwel i haayaane ii sheeg bal aniga maxaan ku dhahay waa iloobay yaabuu leeyahay fira biyo migu caawin kartaa xoogaa biyaha dhankaas ka cab okay ditoris waxaan rabaa waxa maskaxdooda ku jira dhan inaan ogaado ya ha isku dayin inaad soo fiiriso ya arrimahaada xoogaa wax iiga sheeg armihayga maxaan kaaga sheegaa dhakhtar maxaad u noqotay sabab haween ayaa tahay maxaa dhahay adigoo haweena dhakhtar maxaad u noqotay hadalkaagu waa sax aniga habeen ayaan ahay hadalkayga hore iska ilow balse hadalka dambe ee hadda aan ku dhahay xoogaa wax maka xasuustaa ii sheeg hadda marka waxaa tahay dhan waad ogaadsamaa inaad dumar tahayna dabcan waa la socotaa haye dumarkana waajibkooda waa taqaana waa inay ragga keliya u adeegaan waa la socota taas waana kaa dadegsantaa sama mase waa kuu dhammaystira iyadana qofka ugu horreeyay aad daaweysana wuxuu ahaa nin samaha waa la socotaa midtaas mase way lowsantaa iyana ma kaa dhunta iyadana weligaa indhahda may qabteen nin dharka toortay misena dadka dhex qaadaya ma arki sama ninkaas qaawan markaad aragtay adigu dareenkaada siduu noqday ii sheeg waana qalliinka kuugu horreeyay maxaase samaysay qalliinkaas aad gelaysid kalsooni kuma aadan qabin marnaba ma aadan rabin inaad qalliin gasho haddana waxaad ku fikiraysaa ninkaas inaad gacantaada ku disho hadalkayga sidhaaf maa ku jira waan saxanahay soo maa haddii aan saxanahay ii sheegna fariimahan ku faray oo dhan ayaad hadda raacaysaa kulley aniga gacanta kuga hay mana ka talaabi karta fariimaha ها askari soo hadal ها mudane isbitaalka dowladda ayaa dil ka dhacay dhakhtarad ayaa geysatay magaceedana waxaa layidhahdaa anjanaa intaysan dilin ka horne waxay sheegtay inuu nin la hadla ayada ma taqaana ninka may ma aqaan tale isbitaalraama ayaa usoo tilmaamay isbitaalka sidaasaana ku imaan isaga ciidankan ay raadinayaan meel walba ha laga raadiyo
waddo walba isbitaalka galaysa baxaysa bandow hala saaro tali waan ku baryaa anaga gacanta ku soo dhigan jaartida si haddii ay macquul tahay maxaa ku hadlaysaa ma dilaagaasaan fursad siiyaa si uu dil kale u geysto middaas midaan yeelaya maaha idinkana caajiskiin maalmahan way ugu badanayaa muxuu ku hadlayaa waxaan waa wax laga yeeqsiyoodo waya taliya caawa ninkaas inaad gacanta ku soo dhigtaan ayaan ka doonayaa waya warbixin buuxdana waa inaad iga soo diyaarsaa askari taqrigu caawi sabradan ku hoos yaala ma aqoonsatay aqoonu malihi si fiican u fiir sawirkan ma xasuusto waa adiga aniga miyaad sawirkan waaba anigaba maxaa ku hadlaysaa laakiin waa aniga ninkii laakiin maba xasuustiisay ku dhacday haddaba waxaan kuu sheegayaa sawirka gacanta aad ku hayso sawirkaaga inuu yahay is aqoonsi ayaan ku leeyahay yaa waa laakiin ninkan ma aqan tan kale waaba eegyaaba tolka u eegyaa ninkan oo sawirkan hadda aniga miya muxma laakiin adigu yaa tahay aniga baddeeda ka baxee sawiradan si fiican u fiiri waaba dad dhintay ma noolo laakiin ma ka hesha adayga sawiradooda may kama helin aniga oo haddaada ka helin marka maxaad u haysataa waa shaqadeeda oo waaba shaqadaada miya shaqadaada maxay tahay su'aal ha i weydiin middaan ku weydiiya iga jawaab oo maxay tahay dilalkan dhacay adiga ayaan kugu tabaynaa inaad dilkan geysatay anigaan ku hortaaganaa haa sabab laakiin waxaan kaaga sheekanay dilalkan oo dhan adiga inaad geysatay oo intaan lema intaa ka hadlayso olora dembi baar waxaa wanaagsan waxyaabo fara badan inaa ogaataya taasaanba doonayaa inaan ogaado maskaxdaada waxa ku jira maskaxda oo weliba dhankan madaxaada ku talamay sheegaya mise haa middaasaan kaala hadlayaa waxaadna ii sheegtay adiga waxaad tahay ii sababta isbitaalka dawladda aad u tagtay ii sheeg maxaa dhacay oo sidaan oo dhan aad igu qaylisay sababtoo ay su'aasheeda ma aadan iiga jawaabin sabab hadda waxaan kaa doonay su'aalihii hore inaad iiga jawaabto war naga tagaa ku dhah waad iska qaylinaysaa waxaan waxba inaan ku qaylinaya askari hal xabba sigaar igu caawi sigaar ma isii weydiinay weliba geesinimadaada mukulaha istaag waa ku barya istaag
maxaa dhaca adiga deganaan loo baahan yahay askari ninka madaxaad ka gashay ruuxan oo kale deganaan uma maya noloshaada wax badan ayaan rabaa inaan kaale soo bax waa ku baryaa soo bax jaankaan la hadal marka hore adiga deganaan sameeye waa ku baryaa isdeji wax walba deganaan lagu dhammayn karaa ninka madaxaad ka gashay su'aal badan weydiisay ifaan waa ku baryaa xaaladahan oo kale marka arag deganaan loo baahan yahay askari waxa maskaxeeda ku jiro marnaba ma ogaan kartid waad daaraysaa Campbell arrimahaad wax iga sheeg askari waa sidaan hore kugu sheegay ninkan oo kale waxaa loo baahan yahay deganaan in wax loo weydiiyo maskaxdiisa waxa ku jira inaan ogaan rabnaa adigana ma xoog inaad ku daydid waxa aan ku faray keliya waa inaad si deganaan u samaysaa markaas guush waan gaaraynaa qajuun muklaa maxaa kugu dhaca adiga isdeji waan ku baryaa waxaan dareemaa xogaa inaad isku dhex yaacsan tahay soo baxna kaxeey waan ku baryaa soo bax isdeji caadiyaan ahay soo dhaqaaji waan ku baryaa soo bax kan waa baa la rabaa su-aasheeda iga jawaab sabab maxaa tahay adiga haddaan mid ku weydiiyo naagtaada mala socotaa in qadada aniga aan kula wadaagayo ii sheeg bal maxaa yeel raashinka ayadaa kuusoo dhibtay dembi baare ma wax dhibaataa jiro ii sheeg ya haa ma soo raaci kartaa doctor jawaabti daraad agtaada ka soo baxaysay dib inaad u baarta ayaan kaa doonayaa su'aalo gaar ayaan wataa war aniga haddii aadan kalsooni ugu qabin orod meelaha kala tagdee doctore jawaabtaadu way khaldan tahay muklaa isdeji waa ku baryaa waryaa iga leexan ku dhahay muklaa maxaa ku helay xasilooni sameey isdeji waan ku baryaa dhakhtar adna karaa laha wax walba dhaxay okay dhib ma lahan iga celileg wiilkay adiga arrima kuu qasayaa doonaysaa inaad samayso soo maa gabadhiina waxbaa kalweyne annaga ay nala joogaysaa isbitaal ayay u baahan tahay balse isbitaalka lagama yaabo inaan geeno guriga ayaan ku haysanaynaa adigana arrintaas inaad ka murugta looma baahno maya murugta baad iska daada maya haydhin wiilkayga waa ku baryaa gabadheeda xaalad adag ayay ku jirtaa xaaladdaas hal mid oo keliya ayay ugu badbaadi kartaa wax kalena maaha anagina garabkeeda istaagna maxaa le cudurkaaga waa cudur aad u xun wuxuuna ku wanaagsan yahay waalidiinteeda inay la noolaato marka wiilkayga waa iga codsi baliisan baliis waa isku filanahay anaa ogaanaya xaaskayga madaxadayga badan kuuma wanaagsan adiga midaanoo keliya garab waa inaad igu siisaa wiilkayga waan la socdaa gabadheeda inaad jeceshahay balse waxaan kaa codsanaa fursad inaad noo siiso guriga inay nagula noolaato haya fiiri நீயா என்னை மறப்பது நானா உன்னை இழப்பது நீரை நதி மறக்கலாம் நானா உன்னை மறப்பது ஜென்மங்கள் போனாலும் எண்ணம் மாறாதென்றாய் தீட்டு பார்த்தாலும் நெய்
அடி இப்போது மறதிக்குள் சென்றாயே சொல்லாத வார்த்தை நான் எங்கே பேச இல்லாத பாடல் நான் எங்கே பாட சொல்வாயடி சொல்வாயடி நீயா என்னை மறப்பது நானா உன்னை இழப்பது தேகங்கள் மாறும் மாறும் லோகங்கள் மாறும் மாறும் நீனை ஒன்றுதான் மாறாதது முற்காலம் இல்லை என்ற தற்காலம் சுவையே இல்லை நம்பிக்கைதான் வாழ்வென்பது நீ கொண்ட நினைவுகளோ சொல்லாமல் நின்று நான் கொண்ட நினைவுகளோ கொல்லாமல் கொன்றுவிடும் உடல் என்ற சகதியிலே மனம் மட்டும் மூழ்குவதோ கரையோடு கை பிசைந்து கணவன்தான் கதிருவதோ கணவன்தான் கதிருவதோ சொல்லாத வார்த்தை நான் எங்கே பேச இல்லாத பாடல் நான் எங்கே பாட சொல்வாயடி சொல்வாயடி நீயா என்னை மறப்பது நானா உன்னை இழப்பது laytarkan soo kaage ma ayaa siisay mooga qofaan siiyey ha isku dayin been inaad ii sheegto xaaskaada caafimaadkeeda bal ka waran oo weli isbitaal ma aadan keenin miya waad ka aamustay xaaskaada xaaladdeeda ma fiicna sababtoo ah xilliyo fara badan ayay ku sugaysay xaalad dhibaatay ku dhex jirta markaas yaa la hadlaysaa adiga yaa kale adigan kula hadlaya oo arrintiisala waa ilowday miya daqayow naga aamus xaaskaada inaan kaa waraysta ma wanaagsano soo maa waa okey dhibaato ma laha tan kale weli waqti ayaad haysataa jaanis macnaha waad ka faa'iidaysan kartaa meeshan inaad ka baxdo lagama yaabo ilaa haatan arrintaas kuguma soo qaada aniga waxay ila tahay arrimaha xaaskaada inaad aad uga walwalsan tahay oodna rabta aniga inaan garab ku siiya sidaas darteed ayaad halkaan ii keentay mase ku qaldanahay caafimaadkeedina inaan wax kaaga sheego hey booqashadaadana dabcan waan dareemi karaa waan ku ogahay dilka faashifaajo ayaad u geysataa adiga damiirkaaba kaa dhintaba see ku keentay xaaskaadoo xanuunsan inaad weli shaqada sii wadato ma danqanaysid miya xaaskaadana ma nicisid aamus ilaa intee in la eg ayaa shaqadan wadaysaa bal adiga waxaad ii sheegtaa dilkan sidaad u geysato
waxaad ka fikiraysaa xaaskaada dhimashadeeda iyo nolosheeda taasna aamus ayaan ku dhahay dilkan sideed u geysataa ii sheeg maxaad rabtaa marka oo noo inaad ogaato ii sheeg halkan soo fiiri waad saxan tahay waxaana loo baahnaa xaaskayga inaan ka fikiro laakiinse maxaan sameeyaa dembi baare ayaan ahay mana laga yaabo dadka kale maskaxdooda sidaad u qabatay inaad u qabato maskaxdeeda xataa familkayga kuma samayn kartid tallaabo noocaas haddii aad qaadaan natiijadeeda arkaysaa dadka noocayga saldhigga markii la keeno dadka soo booqanaya xataa way ku adkaanaysaa siday ku badbaadaan xaaskayga arrinteeda aniga ayaa xalinaya si kasta ay ugu qaadataba laakiinse mid suurtogelaysa maa maskaxdeeda adiga inaad la wareegto waan ka soo horjeedaa weli shacbiyaddu ay kuu baahan tahay adeer hadalkayga wuxuu noqday mid ku qanciy soo maa nacam hadda laytarka gacanteeda ayuu ku jiraa arrimaada waxaan doonayaa qisooyinkaaga dhan inaad iiga sheekayso ma hadli karto soo maa ilin laytarka gacanteeda ayuu ku jiraa macno ma leh anaa kuu shidayo iftiin waa kaas hadda su-aashaan ku weydiiyey iiga jawaab noloshayda hadda gashamee macnaa waxaad rabtaa inaad weliba wax ka ogaato waan ka helay arrimahaada xaaskaada haddii aad rabto inaad badbaadiso hal wadda oo keliya kuu fulan taasina marka hore waa inaad aniga ugu kalsoonaataa markaas ayay xaaskaada ku badbaadisaa balse inta ka horayso muglaan waan dareemayaa waxaad u baahan tahay inaan ku garab istaagon ku caawiya waxaan shaki ku jirin caawinaaddeeda inaad u baahan tahay hadda biyahan ayaa adiga ku dejinaya misena waxaad noqonaysaa qof deggan oo faraxsan weliba waxaadna noqon doontaa qof mar kale soo laabta sida anigoo kale fanbroj.com fanbroj.com وكسلام مدن maxaa kugu dhacay sidaana maxaad ugu fadhisaa kor maxaad ka fiirinay ya aniga mame waxbana sidaan oo dhan maxaad ugu cabsanaysaa maanta mame maxaa kugu dhacay mame waa fiicanahay waxbay ma gaarin ya adiga soo ma fiicnays ya aniga waa fiicanahay soo qolka gudaha gal laakiinse aniga waa kuu soo laabanaa howlaa qabiiga kaalay intee haydaasan yaqi kan maxaa ka qaldan maanta xaaladiisa sida hore maaha ninkan waa la arrintiisa maxaan baaritaan ku sameeyaa aniga ayuu maskaxda iga qabsaday mashquul gooni ayuu yiri mukulaha runtii nin wanaagsan ayaa tahay shaqada qabatane aad iyo aad aan uga helay runtii
mideeda kale waajibaadkaaga si fiican aad u gudataa okay qorshaaga xiga muxuu yahay hadda qorshayga xiga wuxuu yahay ninkan sababta uu waalan yahay inaan ogaado iyo maskaxdiisa buuq ku furan meeshuu ka yimid okay doctorka ayaan tusinaynaa marka horta aniga ninkan maskaxda waa ka baara horta dhiigga maskaxda inaan ka baaro kaliya ay dhama waana ka baara mid kale ayaa jirta laakiin way sheegi kartaa waxaa jirto dhakhtarka ninkan xaaskiisa baaray wuxuu ii sheegay maskaxda inay ka xanuunsantay xaaskiisa xaaskayga maskax xanuunkeeda waaba gooni laakiinse maalmahan waxaa dareemayaa in aniga maskaxda uu cudur ay ka soo socdo iyadana xal kale ay u baahan tahay waa in la xaliyaa haddii aan dhakhtar ahaan u hadlana mukilla waa inaan nastaa adiga nasiin weyn ayaan u baahan tahay markaas ayay maskaxdaada degaysaa mahadsan doctor xaaskaaga deefi dadka isbitaalka ku jiro waa qofta ugu yar annagana ilaa hadda waan dadaalaynaa jawaabteedana weli maanan arkin wareysi badanna waa la yeelana annaga booqashana maya lama ogolo annaga waxaan isku dayaynaa bisha ugu horeysa gabadha keligeed inaan karantiinno maskaxdeeda iyo ogaalkeeda si ay dib ugu soo noqdaan dadna ma noo imaanayaan booqashadana waa mamnuuc waa ku baryaa maantoo kaliya ila joog waan ku baryaa waa maanta oo kaliya garkaagaan haystaa waan ku baryaa hay la yaabin aniga ooyinta ma joojin karo kaligeen cidlada ha iiga tegin waxaan rabaa inaad ila joogto ilaa intii aan kaa dhahayo iska bax oon aniga ku fasaxayo waa ku baryaa ha cidleenin magaaladoo dhan baaritaan ha lagu sameeyo bandow ha la saaro waddooyinka tariinka garoonka diyaaradaha basaska meelaha ka baxa intaba meelahanna baaris ku sameeya waryaa sawirkaa ma aragteen makasismiya tali meelaha waan ka wayna nagood صاحب مكذب ويبقى قطعنا القرب دي بحنتها ninkan waa dilaa halisa weliba akhri far badan isticmaalaya ninkan aad arkaysaan waa nin maskaxda ka jira magaciisana waa maayan markaan baaritaan ku samaynay garoonka diyaaradaha iyo liisaska tareenada magacyada lagu qoro markii aan baaritaan ku samaynay sawirkiisana aan magaalka oo dhan dhex dhignay waxaan ogaanay waddanka inuusan u dhalin oo dad shisheeye ka yimid si kastaba ha ahaatee sida ugu dhaqsiyaha badan riboodkiisoo buuxa waa inaan gacanta ku dhignaa kadib markii aan baaritaan dheer samaynay kuna laabanay airboorka waxaan ogaanay ninkan magaciisoo dhammaystiran mayank arokraj inuu yahay wuxuuna u dhashay british ninkan runtii maraan gacantiisa fiirinaya waxaan ku arkay 4 calaamadood calaamadaas markaan si fiican u fiiriyey waxay ila muuqataa inay tahay khaniisho maskasna runtii ma aha da'diisa da' weyn waa mas da' yar masaska noocaas oo kale markay ku khaniinaan waxay leedahay laba dhibaato dhibaatooyinkaas waxay kala yihiin mid adiga nafsadaada saamaysa ama mid qof kale dhibaato gaarsiinaysa oo markaas sii faafaysa qolada shaybaarka markay baaritaan sameeyeen waxay noo soo sheegeen dhibaatada maaya jirkiisa ku taalo in ay tahay mid noloshiisa virus ku abuurtay khaniishada maskaas waxay sababtay in jirkiisa ay ku abuurto sun fara badan suntaasna waxay ku faaftay dhammaan dhiiggiisa suntaas waxay noqon kartaa mid asiga jirkiisa disha ama maskaxdiisa disha qaybta maskaxda naga tilmaamaya waa qaybta kaliya qofka bini'aadamka oo go'aan ka qaato ama u soo saarta suntaas markay ay gaarto qaybtaas maskaxda ka mid ah waxay noqonaysaa qayb baabaada maayarna cudurka waa noocaas oo kale
waxyaabaha uu samaynayna ma kala ogaan kara isaga waayo dictor xalka muxuu noqon karaa xalku waa hal keliya midaasna wax kale maaha waa cirbad cirbadaasna waxaa la dhahaa antidos waxayna ka howlgashaa maskaxda haddii cirbadaas la durana muddo 2 bilood gudaheeda waxay ku soo laabanaysaa maskaxdii sidii hore haddii aan sidaas samaynana maayar xaaladda uu ku jiro wuu ka baxayaa haddii aan laga gaarin dhibaatada ay soo wajahaysaa waxay tahay fayraska jirkiisa ku jira waxay saamaynaysaa dhammaan bulshada dadweynaha beledkan degan waxaa la ogeysiinayaa nin maayar lagu magacaabo inuu soo baxsado weliba maskaxdana uu ka jiran yahay khatarna uu dadka u yahay waxaa la wargelinayaa dadka meel walba uu ninkaasi joogo inay booliiska soo wargeliyaan haddii ay arkaan haddii kale fayraska uu wato ayuu faafinayaa baaritaan kaloo dheer markaan samaynay waxaan ogaanay magaalada Chennai inuu guri ku leeyahay gurigaasoo martidu ku soo dhaweeyay haddana booliiska gurigaas ayay weerar dheer ku sameeyeen ninkan maayar lagu magacaabo asalkiisa hore wuxuu ku yimid UK isaga iyo xaaskiisa kadib wuxuu aaday hoolka weyn ee martida uu ku soo dhaweeyo isaga asxaabtiisana hoodka ayay aadeen si ay xayawaanadu u ugaarsadaan meeshaas ayaa mas ku soo qaniinay أريح حالات جاكسنتا كاكا سودك إياه أخش مسا سهل كان كجرانا كهال عرق وريا وامحي سيدا وسق إيجا سودا alaabtan kalena ii soo qaada maskana baaris ku sameey sida ugu dhaqsiyaa badan haya tali ordaha taliya meel lagu magacaabo nakaliya ayaan waxaan ka helnay nin masas sida booliska miyaad problem u aragtaan waryaa ii banee waxayba ogyihiin cayaal college abo ninaku imaadi kalinta ما شغله كل عصب يا ميلان اسمك كدو يا لينك انك شقيسني يا اخي ارض يقوع اي هدي ليه يدب اوكي نعمودنا انا حلاي وريا استاك جاك دبا نعلا كو الويس وريا استاك
ورياضة لبدين كورفولا اوكي اوكي لبدين كلا حاجة انت وايد قبر قبر استاك سيس كده حقونا ستيتش abootayna furo xayta yaa kursiga meesha dhigay yaa saxaawo gabadha waa ugu qosloosaa adnabi waa say ila tahay waaba ka helabo musaaf duwana ورنالك يد مياوي ما عرفت أنا ماين ماين أنا قبل سيدة وريا ماين قعنت هذا كغاب يا هذا نيشان هو كبر يا إسكنا في مسكينك مسكين يصوب بحية يصوب بحية وريا أوه إقدر مسكين مسكين جدش هاي ماي أو دوي أي إلي واكبر يا إسكنا ماين مايا والمعاد قربتان قني يا مرلبات ماين واكبر يا إسكنا فلالو معاد قربتان معو كازمية هداد يوغلا ويسو مرلبات وخنينة إلا إيغو غلاتي هذا بيوغلو halkaaga sidaas haye mayan way ogolaata u maleeha maya war adiga maxaad samaynaysaa bini aadan nuucaa tahay adiga waa kuu baahana ii imow iska day ninkaaga xaaladiisa aniga agtayda soo fadhiiso aniga kuu baahan aniga imaw ii soo dhawow mar dambe adaaba qosli dooninba qosalka waa lagu gaabay ahaan ku dhahay qosalkaa tirada ka badisay ee kaal kheyladana daa aamus agtayda imaw cariiriya kuu baahan maya imaam kaalay dhuubo isiita wariga faquriya afakani ii kaalay dhuubo kaalay xaala kudii iska gedhaaf مايان مايان معك ودعي سو ما في عند حبيبي معك قلدن مايان إلى هذا الله قال مايان انت قاعد إيسا هو كبري عايقة فقانين مايان ماشان ما تيجي تقيسا بليز قال مايان مايان والمعك ودعي قرش العامة اسكو قلقلو يسامع عدا عسكا من كتكتي يا مسوا كل فتي بس واي
استجي wax walba hagaagay ninkan fiiri ninkan ma aqoonsan kartaa si fiican u fiiri wajigiisa si fiican u fiiri waa aniga maayankayga wuxuuna ku fiicnaa cilmi baarista wuxuuna daaweyn jiray cudurrada maskaxda ku dhaco wuxuuna anii shaqadiisa si fiican u gudda haddana waa kana maayankayga intuu iga aaday wuxuuna ka soo jeedaa taamil ani asagana meeshaas ayaan isla joognay waxaana ahayn labadeenna oo keliya dadka taamil ka soo jeedo magaaladaas ku nool wuxuuna ku dheereeyey sida maskaxda loo daaway iyo neerfaha wuxuuna ku dheereeyey dadka maskaxdooda ka luntay inuu dib ugu soo celiyo weliba qaab farsamaysan xirfad dheeraadna wuu u lahay daaweynta maskaxda anigana waxaan ahay asaga gacyaradiisa tijaabadiisa ugu horeysana wuu ku guulaystay markaas kadib ayaan waxaan go'aan ku gaarnay anaga indii inaan fasax u soo qaadano marnaba kuma fikireen anaga dhibaatooyinkan inaan faraha la gelayno dil ayaa magaalada ka dhacay dilkaasoona loo geystay nin magaalada laga yaqiinay oo koox madax u ahaa markii la dilay kadibna waxaa lagu sameeyey calaamad x ah dilkaasna waxaa loogu sheekay inuu ka dambeeyay ninka loo yaqaano Mayan ciidamada dambe baarista markay baaris sameeyeen waxay gacanta ku soo dhigeen ninka loo yaqaano Mayan hado booliska hado waxay qabtaan mala sigaar mayso saaxiib ma iga cabsanaysaa maxaa dhacay kaalama fanbroj.com abo maria ninka boskan dil xagga Steve صباح دون تستاريا نكنا صباح صباح مايان حبيبي مايان تلي مي مقليسة تلي يعني waxaan joogaa meesha dilka uu ka dhacay waxaana loo sheegay Mayan inuu meeshaan joogo sidii ugu dhaqsiya badan waa in aniga gacanta ugu soo dhignaa hadii kale gaangistra ayaa dilaya anigu i baabi'iyey soo maha bal ha isku day mar laba dib inuu i baabi'iyo wecel dale aflaamta hindiga maraykanka kartoonada iyo weliba meesha jirto ma sheegi kartaa oo afkaaga hooyo ku tarjuman xaaskaaga maxaan ka ogaysaa hawada qulqushiya waxay ila tahay caska inay qulqusho qaraawadi kadibna ay dhacdaaday ay dhimatay oo xaaskayga inay dhimatay miyaad iiga sheekaynaysaa saaxiibaday aniga igu dilay saaxiibtaada dili ma dil adiga gacantaada ku dilay saaxiibaday been nafsadiidaa ka sheegin war ii sheeg yaa dili ii sheeg ii jawaabaan ku dhahay
iftiinkan soo fiiri waxaan ku furo oo keliya ayaad ku dhaqaaqaysaa iga qabta dadkan isoo raaca maxaad sugaysaa ay soo dabagelinaya isqaybsha may gudahan gelayna anaga maxaa kugu dhacay maxaa waxan aawo isaga ii jawaab adiga ayaan kula hadlaya aawo isaga aawo maxaa dhacay aawo isaga xagga ninkaaga noloshiisa daarata waa inaad anigii ogolaataa filimkan inay kale tan studio maskaha iska ruugay oo iska jabsahay markay dharka gashanaysa xataa waxay u baahan tahay garab 6 bilood oo la soo dhaafay kaligeed ayay meel gooniyi fadhiisanaysay waxayna ka fikiraysaa arrimaha guriga mudana waan ku baryaa gabadhaas ha qasin way murugsan tahay waa iga codsi mahadsanid ima aqoonsan miya maxaa dhacay maya hadda ka hor ma kulannay ii sheeg bal maya ma kulmin aan iskaa baro magacii waa muklan நீயா என்னை மறப்பது நானா உன்னை இழப்பது
maayan muddo dheer ayuu wuxuu raadinayay xaaskiisa aanii anna wakhti walba waxaan ku dadaalayay xaaskayga inaan xasuusiyo inaan ninkeeda ahay sidaas ay tahayna way fahmi weysay dhibkayga ayaa sidaas ahaa தீட்டு பார்த்தாலும் நெஞ்சம் வேகாதென்றால் எப்போதும் நினைவொன்று இன்பம் இன்பம் என்றாய் அடி இப்போது மறதிக்குள் சென்றாயே ஒன்றுதான் மாறாதது முற்காலம் இல்லை என்றால் தற்காலம் சுவையே இல்லை நீ கொண்ட நினைவுகளோ சொல்லாமல் நின்று நான் கொண்ட நினைவுகளோ கொல்லாமல் கொன்றுவிடும் உடல் என்ற சகதியிலே மனம் மட்டும் மூழ்குவதோ கரையோடு கை பிசைந்து கணவன்தான் கதிருவதோ கணவன்தான் கதிருவதோ